واو nafaqo inaba caadi ahayn soo dhawaada haddaa jeceshahay inaa yeelato waji qurux badan maasha Allah oo kush ah oo cayilan ka faa'iideyso wax nafaqadaneyti maanta aan niin wado waa ka heli doontiin waa hubaa waa nafaqo inaba caadi ahayn soo sameysta insha Allah soo tijaabiyo waa ka heli doontiin aniga waa ka helay qaruuj ahaan way anfacday walaalahayga markaad kan tijaabiya waa nafaqo inaba caadi ahayn oo wajigaaga kaaga dhigayso qurux liisho waji maasha Allah inaba caadi ahayn oo cayilan haddaa jeceshayna wajigaaga oo ku noqdo waji cayilan oo waji caata ah taha sameyso insha Allah waa ka heli doontaa woona ku saacideynaysaa nafaqadaneyti maasha Allah waa iftiin ayay wajiga ku siinaysaa ama nuur lagama sheekay karo waxyaabaha ay u fiican tahay dhammaan sameysta tijaabiyo waa ka heli doontiin walaalahayga qaaliga ah meel kastoo dunida daafeeda ka joogtiin sidaa u sameynaa bilow ilaa dhamaad daawasho wacan insha Allah waa ka heli doontiin waa hubaa aniga way anfacday waa nafaqo maasha Allah oo dabiici ah waana ka heli doontiin haddaa sameysataan wajigiina aad ay nigu qurxi doontaa waji cayilan oo qurux badan haddaa jeceshaha iyo cadaan dabiici ah sameyso tijaabi waa ka heli doontiin waan iiga soo duceey doontiin waa hubaa marka sameysta sidaa u sameynaa bilow ilaa dhamaad daawasho wacan insha Allah niga hor dhacaayo aad ay u fududahay jikadaada ayaan ka heli doontaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteeda qaaliga waalin salaam meel kastoo dunida daafeeda ka joogtiin waa markale walaashiin Khruuja ugu horeyn channelka daa ku cusubtahay subscribe saar haddaa hore noola joogto qaybta leega naga dhis fariimo waxa qabtaan commentiga noogu reeb walaalahayga qaaliga ah soo dhawaada ugu horeyn channelka subscribe saar si cashar walba soo geliyo oo ninkugu soo dhaco walaalahayga qaaliga waa mahadsantihiin ugu horeyn waxaan ka bilaabeynaa xabad baradhe ayaa meeshaas ku haysanaa oo soo fiiqne oo soo dhaqne waa aragtaan soo maaha maasha Allah waa xabad baradhe ah oo soo fiiqe oo soo dhaqay marka waa hooleynaa baradhada geedkaas ayaa ku hooleynaa insha Allah marka hoosho ay arki doontiin sida u isticmaaleen walaalahayga qaaliga niga hor dhacaayo insha Allah waa arki doontiin step in oo xaraba fahantiin oo sameysatiin nafaqadaneyti inaba caadi ahayn baradhada waa ogtihiin wajiga aad iyo aad ay u fiican tahay wajiga way caylisaa waji cayilan ay kaaga dhigaysaa maasha Allah daaman oo kush ah waa fahantiin soo maaha baradhada aad ay u fiican tahay weytina way leedahay cayil daamanka dhiig ku cayilinaysaa aad ay u fiican tahay walaalahayga qaaliga wax tarkeeda lagama sheekay karo iyo fitamiinka ku jiro marka jikadaada ayaa ka helaysaa nafaqo maasha Allah inaba caadi ahayn marka jikada galeysid sameyso wajigaaga marso kadib hore u soco jikadaada hore u wado marka aniga way anfacday marka waxaan sameynaynaa baradhada waa aragtaan soo maaha waa soo qabtay biyaha ayaa ka tuujinayaa sida aragtaanba biyaheeda ayaa rabaa biyaha ayaa la bixi doonaa insha Allah biyaha ayaa ka tuujinaynaa biyaha ayaa isticmaali doonaa inta kalena isticmaaleyno baradhada biyaheeda ayaa u baahanaha ugu horeyn baradhada biyaheeda ayaa u baahanaha si fiican ayaa biyaha rabaa inaan ugu soo tuujiyo waa kaasaa fiican ayaa ugu tuujiye waa kana biyihii meeshaas ayaa kusoo shubana baaquligaaseeti sida aragtaanbo waa kaasaa soo maaha sida biyaha u egyihiin fiiriya quruxda waa aragtaan soo maaha maasha Allah marka waxaan ku darsanayno ila socdo insha Allah meesha waxaan ku haysanaa saabuun doof sida aragtaanbo jabkaasi wax yar ayaa ka hooleynaa ma wala isticmaaleen insha Allah walaalahayga qaaliga waa arki doontiin kaamirada maniga jaraayo insha Allah marka wax yar ayaa ka isticmaal doonaa wax badan kama isticmaaleyno wax yar ayaa ka isticmaaleyna sida aragtaanbo qiyaasta jeceshinta soo ka badsan kartaa oo fridge-ka aga shanaysi laakiin waxa sameysanayaa wax amarsanayo 2 jeer ilaa 3 jeer oo wax yar fridge-ka aga shanaya wax badan ma sameynay mar walbo ana sameystaya fiican marka aan ma jecelina wax sayd u badan sameeyo wax caadi 3 bir 4 biri iyo aalay ayaa sameystaan nafaqooyinka marka wax culusba maaha mar walba ayaa sameysan kartaa aad ay u fududahay marka waa kaasa intaas sir ayaa ka hoole saabuunkan aad ay u fiican yahay walaalahayga qaaliga ah insha Allah inaa ka faa'iideysan doontiin ayaan rajeynayaa waa kaasa biyihii kala qurux badan oo yeelabayeen oo noqdeen
waxa ku daraya waa saabuuntii aan soo hoolay waartan soo maaha marka waa isku qaseynaa saabuunta iyo biyaha baradhada ayaa la rabaa in si fiican isku garaacdo ee dhexdiisa ka galaan waartan soo maaha si fiican ayaa isku qaseynaa masha Allah si fiican ayaa la rabaa inaad dhexdiisa ka gelisid markii la socdo insha Allah waxa ku soo darsaneynaa wax yar oo ah haruud ayaa ku darsaneynaa haruudkanitna waa haruud aad u fiican waana haruud original haruud hindi ayaa la dhahaa walaalahayga qaaliga meel kasta oo joogtina ka heli doontiin ayaan rajeynayaa kalarkiisa waa aragtaan soo maaha waa yellow oo dhaag marka haruudkaasi ayaa ku darsanay masha Allah haruudkan aad u fiican yahay wajiga wasaqda waxyaabaha ku jiro ayuu ka soo bixinayaa jirka dhamaan waa marsan kartaa marka insha Allah waa kaasa haruudkaas ayaa ku daray ku walaaqayna si fiican dhexdiisa ka gelinayna walaalahayga qaaliga waa nafaqo aad u fiican sameeysta tijaabiyo waa ka heli doontiin waan iiga soo duceey doontiin walaalaha kale u share garay fiidiyoga doo ku soo gaara kaliga ha isku koobin sida aniga ugu faa'iideena adikana walaalihiina kale ugu faa'iideen insha Allah fiidiyoga doo ni soo gaaro share garay kaligiina ha isku koobina waa mahadsantiin walaalahayga qaaliga meel kasto dunida feeda ka joogtiin waa walaashiin Khruuja marka waa kaasa nafaqooyin badan ayaan soo wadaa cunto karinta sidoo kale tood ayaanta xoogaa update kama ihi laakiin insha Allah waa soo geli doonaa cunto karinta isqurxinta dhammaan fiidiyoyaasha waan soo badi doonaa marka waa kuwaasa insha Allah nafaqooyinka timaha waxyaabo badan ayaan soo wadaa channelka doo subscribe ku ahayn subscribe saar kambalelka furo si wax walba soo geliyo ugu soo dhaco uguna faa'iidin insha Allah mahadsantiin walaalahayga qaaliga meel kasta dunida feeda ka joogtiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh isma dhaafin